codkiinnu maaha timir xabaalta allah hogaamiyaha dooranaysaan xisbigaad dooranaysaan hadba waxay saamaynaysaa noloshiinna xilliga kaambeynka adeerkay maxamed xaaji ibraan cigaal wuxuu odhan jiray qawanida lagu wada hadlayaa xilkan hadday soo gaadho waa la isla hadlayaa tartanka iyo hardanka u dhaxeeya xisbiyada iyo musharaxiinta Soomaaliland oo maraya waqtigan meel xasaasiya ayaa qayb muhiim ah ka ah horumarinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ku talaabsatay haddaad aqbali weydaan tii hore Muuse Biixi naga xishooday Soomaaliland ay naga xishoon mayso cirka soo dumiya haddaad doonayso waa dhacaysiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Maxamed Cali madaxweyne iyo ku xigeen waa la tijaabinayaa iyagana madaxweyne Muuse Biixi waa la tijaabiyay kulmiye wuxuu doonayaa inuu qabiil naga dhigo miyaan taa yeelaynaa annagoo midaysan maynaa dooran maantana inaan musharax kala dooranno sow xaq uma lihin dhacdooyinka noocan ah waxay ka turjumayaan inay dhowrsoon tahay xuquuqda ah inay bulshadu doortaan hogaamiyaasha ay rabaan iyagu keensadaan kursiga rabitaankooda taasi oo muhiim u ah ilbaxnimada iyo horumarka bulshada reer Soomaaliland waxa ay sidoo kale muujinaysaa taageerada bulshada in ay tahay mid laga maarmaan u ah guusha musharaxiinta waxaan idinku bishaaraynayaa shacbiga Soomaaliland bariga galbeed waxay ku midaysan yihiin dalkan in isbedel ka dhaco muddo dheer baynu ka foolinaynay in doorasho dalka ka dhacdo waxaynu doonaynaa doorasho nabad ah oo xalaal ah oo xor ah inaynu ku tartanno أنا مشرح كلميان حزبك كلمية أنتوا سيرة أفوفو إذا نرمايا سودي جاي يهور المايسان ليج مايا ليجينا قرن كهور مايسان أنا جاي يهور مايسان كلمية أنتوا سيرة أفوفو المايا سودي جاي يهور المايو مايا كلمية قرن كدفاعية دورشادا عودك حرنو قفو بخنايا سوساس معها إن كل مية لبدله سو معها. وحنا الشعب الرئيس ومعنا صدح لنا مشارح وكرة قرنصة. الحين موسى وعركته. ما أنت وحنا فرتينا هسكوك حيننا. فرتينا هسكوك بربرين. wani waa qaarkood taageerayaasha xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland oo muujinaya dhiirigelin iyo taageero as oo tilmaamaysa in doorashadu ay tahay mid dadku ay si buuxda uga qayb qaadanayaan وحتى حناشا مدحويني tani waxa ay kaloo muujinaysaa inay tartanka siyaasadeed ee ka dhex jira Soomaaliland xisbiyada iyo musharaxiintu ay si weyn u adeegsanayaan qaybaha warbaahinta fanka abaabulka iyo ololaha fagaarayaasha si ay u hantaan taageerada shacabka oo ah kuwa iyagu go'aaminaya مسؤولك أي ساريا كرسي وأسرية من دعوية سوماليلاند وحموقانيا تاجرياش وسي قلبيا وقيب قادنيا الله الدور الشدة وحينا كتسيسا درين كددوينة يسدع يوقو عنتا إني كقيب قاتان إني سو صارتان هجامين تودا مستقبل كمجراه وقبنيا شعب الرقم لي واسم الدلدون قول بولينا حي عند اللي صوم توا سلام سانوم لكن سعود والكي كمية بدل كمود ديار قرودي وهل بدلنا حكومة دينية فشلانتي دب دمبر اللي نجمع حشاني أما بورو بحما بنانو بحما بالله يسكري ده دونيس maxaa laga baran karaa Soomaaliland doorashooyinka Soomaaliland waxa laga baran karaa ilbaxnimada waxayna astaan u yihiin sida ay shacabka iyo dawladda uga go'an tahay dimuqraadiyadda iyo nabadda Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay si iskeeda uga go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991 waxay ku guuleysteen inay si iskeeda u qabsadaan doorashooyin xor ah oo si nabadgelyo ah uga qabsoontay marar badan waxayna noqon kartaa taasi tusaale wanaagsan oo Afrika uga dayan karta Soomaaliland nidaamka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu muujinayaa bisayl siyaasadeed iyaga oo doorashooyinkooda ka dhigay mid loo wada dhan yahay isla markaana si xor oo cadaalad ka muuqato loo qabto in aanu ganaxnay labada xisbiye kala ah wadani iyo kulmiye min 10 milyan oo shilin Soomaaliland ah sidoo kale markaanu aragnay isla qodobkaas faqradiisa ta waxaanu ka joojinay safarada
iyo socdaallada ololaha u eg ee ay ku jiraan labada xisbi ee wadani iyo kulmiye sidoo kale haddii ay taa yeeli waayaan waxaanu ka xandhibi doonaa oo aanu ka joojin doonaa maalmaha ay xaqa u leeyihiin ee ololaha doorashooyinka. dhinaca ilbaxnimada Somaliland waxa ay si gaar ah u hormarisay dhaqankeeda siyaasadeed ee ku saleysan wadaxaajood is-afgarad taasi oo keentay inay khilaafaadka isbarkan ee ragaadiyay badi Afrika inay ka nabad galaan dhibaatooyinka iyo khilaafaadka siyaasadeed ee gudahoodana ay badankood ku xalistaan hab nabadeed. doorashooyinka Somaliland ayaa ah mid ka duwan guud ahaan doorashooyinka ka dhaca geeya Soomaalida waana doorashooyin ay go'aamiyaan bulshadu halka Soomaalida kale majaraha u qabtaan hogaaminteedu in lagu soo doorto ama la soo dirsaday. doorashooyinkan hadda loo mudeysan yahay November 13 2024 ee madaxtinimada iyo ururada u tartamaya xisbinimada waxaana la filayaa inay noqdaan doorashooyinkii u waaweynaa ee abid u qabsooma Somaliland. dhinaca kale doorashooyinkan isa saaran ayaa u fududeynaya guddiga doorashooyinka Somaliland hanaanka ay u dhacayaan doorashooyinka iyo qarashaadkooda iyada oo loo marayo hal nidaam oo la isku waafajiyay labada doorasho ay u garsoorayaan xisbiyada iyo ururada Somaliland. si kastaba ahaatee ilbaxnimada dadka reer Somaliland waxa ay ku qotontaa dulqaadka dadaalka iyo samirka dheer ay muujiyeen iyo sida ay u dhisteen dal aan wali si rasmi ah loo aqoonsan. nidaamkan dimuqraadiga ah iyo doorashooyinkan ku saleysan xisbiyada badan ayaa ah tiirarka muhiimka ee laga xusi karo ilbaxnimada siyaasadeed ee xaqiijisay Somaliland. Sacad Abbas Ali ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada afaaladaadu waa muhiim. Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha.